aad baad ugu mahadsantihiin shirkii billaha ee xafiiskiinu sida uu qurux badan yahay inuu ka sii qurux badanaa weeye marxalad muhiim ah maanta maraynaa waan soo koobay anu warka Ethiopia waad ogtiin maanta meesha maray Soomaa markaan imaneen maxay soo doonaan dadku qaarna lahayn maanta inaan joogno soo muhiim ah berrina muhiim bay noqon doontaa inaan joogno isbeddelada waaweyn baa Ethiopia ka dhacaya door miiskan fadhinaa ay ka talintii Ethiopia iyo xuquuqihii ummadaha inay wada joogayso inay kala tagayso siday wax u qaybsanaysa maanta miiskan fadhinaa kollad gadaal mari mayno sugayaal ma noqonayno haday doorashada timaadana waxa guulaysan hadii ku meel gaar la sameeyana hadii ku meel gaar la abuurana safka horaanahay aayaha ummadeena iyo dhulkeena inta iyo xuquuqda inaga maqan siyaasiga xuquuqda siyaasiga inaga maqan iyo dhulalka inaga maqan iyo xaqqa inaga maqan iyo ismaamulka awoodiisa inaga maqan intaba inaan soo ceshano Ethiopia maanta waxay u socotaa sidii ahayd si ka fiican inay noqoto haday kala tagtana waan ugu ayaan badnaanaynaa haday isla joogtana waan ugu nasiib badnaanaynaa safka horaan fadhiyaynaa dhulkeenana waan u tashanaynaa khayraadkeena waan u tashanaynaa horumarin iyo dawlad ku filan dadka Soomaaliyeed baan dhisaynaa haday kala tagtana inagaaba Soomaali haysana oo xuduudaha iyo in bariisi in saliida waynoo soo mari inay nagu soo qaxaan baan ka baqaynaa inaga maanta dhul midaysan iyo dad Soomaali oo midaysan iyo maamul midaysan baan leenahay sida daraadeed walwal badan male kala guurka si midaysan marxalad fiican baan nagu maraynaa marka maanta waxay u baahanahay inaan istiyaarino oo shacabkeenu isku xidhnaado shacabkiiyo jabhadda isku xidhnaadaan jabhadda iyo maamulka wada shaqeeyaan xisbiyada iyo jooxayna wada shaqeeyaan xaqqa dadka Soomaaliyeed inaan difaacno maanta diyaar baan u nahay miiska wada hadalkana jooxa fadhida meel intii wax lagu kariyo xamaaradu intanaad ku leediin aan dhihi doontaa ma jirto ma jirayso sidaa daraadeed magaala madaxda wadankeena waa Jigjiga xafiiska gobolka Jigjiga iyo xubnaha gobolka Jigjiga iyo muxuu ahay magaalada Jigjiga iyo dhammaan goboladeena inay maamulka jooxa diyaar garoobo oo aynu oga si fiican u dhigno oo aynu soo jeedno oo ciidankeena iyo xubnaheena ay xafiisyada diyaar ku yihiin oo danta guud difaaca dhulkeena waxoogaa yar canfar bayna yar daansanaysa difaaca dhulka iyo go'aamada ay jooxa soo saari doonto iyo talaabada aan Soomaali ahaan wada jir u qaadi doono inuu taageero shacbi helaan rabnaa taana waan ku kalsoonahay inaad taageerada geenaysaan mar haday marka in yar inooga dhiman tahay guulahan rabnay siyaasiga guulahan rabnay ay ka talinta guulahan rabnay ismaamulka guulahan rabnay inaan horumarino dadkeena oo hay'adaha dawladda u dhisna in yar haday inoo jiraan maanta shidaalka ugu badan soo inaguma jiro soo guushidin ma muuqato soo horumar weynidin ma muuqdo sababtaan u nimi taas ay ahayd waxaan doonayaa xasuuq baa ka dhacay gobolka galbeedka City galbeedkiisa magaalada Garbaciisa dad boqolaal oo Soomaali ah lagu xasuuqay qaarna waa la qafaashay xoolahoodina waa la dhacay waana la gubay waxaan doonayaa inaad hal daqiiqo u istaagtaan dadkii shuhadada ahaa oo aynu faataxo akhrino iyo shuhadadii wadankan u shahiiday inaan u istaagno daqiiqad oo aan faataxo akhrino iyo ciidankeennii muxuu ahay difaaca ku shahiiday intaba waad maasantiin ifadhiista nabadna waan nahay midna waan nahay guushuna way noo soo dhowdahay Ethiopia oo leedahay maanta ka odayeey oo kala qabta leeyahay soo talaabo weyn ma adduunyada ninkii noo maamul aragti buu arkay wax sidiisa ku dadba waxay ku oranayaan Ethiopia wali isbedeli mayno wali wax ka noqon mayno inagu waligeed wax ma qabsan karo waligeed ma xumaanayso waligeed kan ma noqonayso taariikhdaas oo soo been ma noqon 6 sano ka hor markuu Meles dhintay baa waxaan niri 9 sano laga jooga Meles markuu dhintaan Ethiopia way isbedelaysaa wali hadii jirteen bay dheen hortooda isku bedeshay Meles baa dhacay nin kale yimid wuu dhacay way isbedeshay haddana way isbedelaysaa isbedelada aan sheegayna xaqiiqo weeye jawxiya dadkeena gacanta isku haystaan ma rabnaa xubnaheena iyo gacmaha inay saystaan iyo maamulkeena midnimada iyo ururkeena iyo midnimada ummadeena in la soo celiyo guusha inoo muuqata inaan xamaasad iyo midnimo iyo isku duubni iyo hir inoo muuqdo caleen inaan ku dhaqaaqnaa loo baahan yahay walbahaar iyo waan gaajaysanahay
Ethiopia sidii noqonaysaa iyo cirkay ka soo daadataa iyo iyadu waxa ma noqonaysaa fikradda inaan ka baxno oo gacmaha isqabsano weeye maamulka gobolkeena si halka ka sii wada hadii la yiraahdo gobolada oo dhan xaflad fiican lagu qabto هذه مرتبة أي شيء تون إذا كان هذه اللي هذا وهذه ها حروده هاي سرعته جوش هذا ها قاعده شوح ها قوليسته شعبي جينا ها قوليسته سومالي حق هذا هاي شو شعبي السومالي هم يذوب هذا بدل ما 60